السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أصحابتي ومحمد فرطانو إيدي السلام يا عشر كين الشناد وحنو قلي دونا بلع عسل فيديو يعني لو كرصدو waxaan soo farbana laskana soo dhiganay insha Allah resolution-ki hadda waxaan dhigan doonaa video kasta wuxuu ka hadlayo size-kiisu ku xidhay tusaalaan video waxbarasho hadda sameynayso other size-ka waa inaad ka dhigataa size weyn oo balliciisa la fahmi karo sida YouTube iyo cinemoyada iyo xaasi iyo TV-yada haddii aad doonayso video story-da ama waxyaabaha iska dhigata ama xayeysiis ah waxaan ka wadaa xayeysiis ma ama fan ah waxaad sameynaysaa video story marka inta badan social feed-ka waxa loo isticmaalaa videogan kale isagana loo yaqaan square-ka yani afarta geesa marka had iyo jeer maanta dharigaan wax ku karsanayna waxa weeyaan intaan timeline-ka gaadhin horda waxaan sameynaynaa sida loo xidhaa waxa loo xidhaa control n taabo ama halka yar iska tag asxaabtay halka yar waxa ku taala Allahu musta'an sequences wax la yiraahdo waa dhariga yani aad wax ku karsanaysay ayaa halka ka hagaajisanaysaa marka hadaan ku dhufto sequences ka taabto ama control n aan siiyo waxa ii soo baxaysa daaqadan waa daaqad ku sheegaysa bitrate-ka frames-ka resolution-ka wax oo dhan marka sorry halkan asxaabta waxa ku qoran standard-ka hadii jeer tagiyo standard-ka waxa loo yaqaanaa inta badan bulb la yiraahdo waxba ka bedelin waxaan ka wadaa NTC sorry standard waa yani waxa la NTSC oo loo soo gaabiyay National Television System Committee wax la yiraahdo oo iska waa system adduunka isticmaal laakiin hadda Afrikaanka waxaan ay bulbayno isticmaalaa waxba taas uma baahnidin hase yeeshee labadaba waa isticmaali karaysa maadaama kan Mareykanku isticmaalo marka sadikaas tagaysa laakiin muhiimada halkaas inuu jeednay halka haddaba videogan ka xidhay inta badan dadku weydiiyeen su'aalo waa meelahan frameseska 28 ka dhiga asxaabta halka NTC-da tag idin sheegay NTSC-da oo ah National Television System-ka idin sheegay committee wax la yiraahdo oo yani qaabka ay isticmaalaan inta badan ama bulba isticmaalka doonto marka halkan resolution-in dhan baa igu jira laakiin inta badan waa ina adigu samaystaa kamaan imika ana sameey videoga ballaca kuwa joogtaha kuwa laydiga ah yani custom baa tagaysaa marka halkan asxaabta waa meeshaad ka xidhanayso tusaalahan asxaabta imika halkan videoga igu jira waa square baa lagu yiri haddaan ku dhufto asxaabta halkan waad save garaysan karaysaa resolution-ka markastoo samaysato laakiin si aan dharigaan ku karsanayno u sameeyno oo qaabkan yani wuxuu ku sahlayaa inaad xidhato maadaama cabirkii resolution-kii wixii aad soo dhigateen masha Allah team marka hadda waxaan doonayaa inaan video story sameeyo ama tusaalahan inaan video square ah kala sameeyo video square-ka ah kala asxaabta soo sameynaya imika tusaale ahaan video square-ka cabir buu qaataa 400 tiro isu dhow buu qaataa tusaalahan hadaan 4AD hadaan ku dhaaf 4AD waxagana asxaabta aan ka dhigo Allahu musta'an 360 inta badan cabirada waa iska garanaysan 360 videogan waxbarasho looguma talin kara asxaabta sidoo kale video story-da ama social story-da la dhigo waa vertical video taagan waxbarasho isna ma isticmaali karaysan inaad fikir ku gudbiso laakiin fan iyo xayeysiis waxyaaba xayeysiiska laftigiisa lama doorbido kan kale laydiga YouTube isticmaala ama taageero ayaa laga dhigaa xayeysiis adduunka doorbidaan in HD ama 4K 8K noqdaan hase ahaatee videoda cabiradooda kala duwan yihiin tusaalahan videogan oo kale waxa loo isticmaalaa social feed waxa la ogaaday inuu view badan leeyahay sababtoo waa square inta badan story-da waxa ka wadaa feed-ka waxa la social feed-ka sida Facebook post iyo kale laga dhigi karaa laakiin page-ka waxa loo isticmaalaa kan kale caadiga ee laydiga waxaan ka wadaa ama ha noqdo 1920 by 1080 marka hadda videogan asxaabta waa square okay ma arkaysaan hadii jeer square waa asxaabta u soo baxaa waxa kale oo jira story-da kale control in haddaan taabto doonayna story design gareeyo waxaan sameynayaa asxaabta inta badan story-da iyadana cilmi inaad ku gudbiso looma isticmaalo waa idin sheegay oo because waad garanaysaa oo adduunka waa yar oo very unprofessional hadda taado wax ku dhigaya hase ahaatee way dhici kartaa sometimes dad ABC waxa ka hadlaysa laakiin looma isticmaalo adduunka inaad wax ku barto dad kan kale waxa ka fiican asxaabta ama ha noqdo 12 wax noocaas 720 ama 704 adigu videoda balcaya inta badan YouTube ku taageero ama cinemoyada oo ay kamid yihiin asxaabta 28 and 860 by 2160 oo kale waa HD ama 4K wax noocaas anyway story-da kala soo xidhay halkaas tagaysa asxaabta hadana inta badan system-ka waxba kama dilaysa 29 isticmaalada waxa sameeynaya xagaas haddaan tago oo custom ilaasi had markii dhawaataan aanu sameynay tusaalahan story-da kale waxa ma sameyn karaaba halkan aan oran karaa 1080 1080 ma iri halkan waxa sameyn kartaa si aad vertical uga dhigto videoga dhululaba uga dhigto waxa uu isticmaalaysaa dimension fara badan laakiin aanu inta badan waxa isticmaalaa 720 oo kale intani hadda 720 inta ma isticmaalay videogaas asxaabta muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa video vertical oo saa u taagan wala u fiirso
sorry kan waa vertical waxaan hadda soo inaan sameeyo story oo kale vertical oo kale aad u sameyn kartaa story oo kale halkan tag custom tag kuwan kala bedel markaa tusaale ahaan haddaan halkan ka dhigo iminka 10 amaba aan ka dhigo Allahu mustacaamay 10 ka dhig 10 ID okay xagan waxaad ka dhigtaa hadda kan aan sameynayo kuma soo baxay laakiin resolution marka sequences cusub doorato mar walba qaabkan aad hadda siisay buu ku noqonayaa marka tusaale ahaan waxaan gelin karaa iminka 10 isumaan gelin waliga waxa si gelisaa 3 6 ama 3 ID 6 iska 3 ID 60 inta yani iska sii marka videogaagu wuxuu noqonayaa asxaabta video taagan oo saa u dheer had iyo jeer ma arkaysaan hadda videoga aad buu dheeriyaa waad ka yareyn kartaa marka cashirkan waxaan ka wadaa asxaabta resolutionka ala nooc hadhow videoga keenso that's it waa yani simple inaad fahanto sida loo xidho videoga balac loogu xidho dherer loogu xidho